shanta mimiconis ay tahay inaad iibsato 2023 si aad uga taajirto cryptocurrency. muuqaalkan waxaa uga hadli doonaa insha allahu tacaala 5 lacag oo mimiconis ah kuwaas oo la filayo in sanadkan 2023 ay sar u kac aad iyo aad u sarreeya ay sameeyaan. marka haddii aad danaynayso in aad maalgashato cryptocurrency waxaad haysataa fursad qaali ah ood uga faa'iidaysan karto lacagahan 5 xabbe ee mimiconiska ah in aad maalgashato si aad sanadan 2023 ilaa dhammaadkiisa aad uga taajirto. top 5 mimiconiskaas waxay kala yihiin number 1 Dogecoin, number 2 waxa waaye lacagta labaad Shiba Inu, lacagta saddexaad waxa waaye Baby Doge, lacagta afaraad waxa waaye Bitget, lacagta shanaad waxa waaye Rich Quick. muuqaalkan insha Allah intaan ku guda jirno waxaan kula wadaagi doonaa lacagahan 5 mimiconiska ah sababta ay loo filayo ama aan 100% u hubo in ay insha Allah sameyn doonaan sar u kac aad u sareeyo sida aan hore u aragnay lacaga fara badan oo dad badan taajiriin ka dhigay sanadii 2021. sidoo kaleeto waxaan si deeply ah u geli doonaa lacagahan mid ayaan uga hadli doonaa. waxaan ka hadli doonaa intay ka kooban tahay iyo waxaan ka hadli doonaa community ee lacagtan leedahay iyo marketing adag ee lacagtan ay sameynayso. information dhameystiran ayaan ka siin doonaa insha Allah. haddii aad ku cusub tahay channelkeena oo ay tahay markii kuugu horeysay waxaan inta badan ku soo bandhignaa lacagaha cryptocurrency-ga, qaababka internetka lacaga looga sameeyo iyo waxyaabo kale oo muhiim ah oo khuseeyo tiknoolajiyada iyo bahalkii. marka insha Allah haddii aad channelkeena ku cusub tahay markii kuugu horeysay ay tahay subscribe saaro si aad oo la socoto wax walba oo cusub aan soo dhigno. sidoo kale muuqaalkan like noo saar si dad badan uu gaaro. haddaba aan hore u bilowno muuqaalkeena insha Allah tacaala. Dogecoin lacagta la leeyahay Dogecoin hadda qiimaheeda saa arkaysaan waxay joogtaa 8 sent ayay joogtaa. lacagtan waxay soo baxday 2013 ayay soo baxday. run ahaantii erigan mimiconiska loo yaqaano markaas ayuu soo shaac baxay oo waxa waaye lacagtii ugu horeysay oo la soo baxday total supply aad u fara badan iyo lacag sentiyaasheeda aad u fara badan tahay xisaabteeda. marka ereygaas meeshaas horta mimiconiska waxyaabaha lacagahan loogu magac daraa waxay yihiin waa lacago ka yar dollarka ayaa lagu taxliiliyaa inay yihiin. sidoo kaleeto waxay isticmaalaan oo ay ka siman yihiin eyga ayay ka siman yihiin Dogeka. marka Dogecoinkaas ayaa wuxuu bulbular markuu noqday 2013 uu soo baxday. lacagtan waxay ahayd ilaa 7 sifir ilaa 6 sifir ayay ahayd. $1 oo lacagtan ah ku maalgashato 2013 ayaa 2021 waxay u dhigmaysay lacag $2 milyan ayay u dhigmaysay. marka tusaale haddaan ka soo qaadano lacagtan markii 8 sano ka hor oo kaleento waxay joogtay 4.085 ayay joogtay. tusaale haddii xisaab ahaan calculation aan sameyno $100 haddii loo qaybiyo qiimahaas ay joogtay waxay noqonaysay 1,170,000 oo xabo ayaad ku gadan kartay. markii all time ay tagtay 2021 waxay noqon lahayd $100 waxay noqon lahayd qiimaheeda 862,992 $. lacagtan already waxaa la aaminsan yahay Elon Musk in uu yahay dadka ugu badan ee lacagtan kimiyada ugu badan haysto maadaama uu ahaa ninkii 2021 lacagtan drive gareeyay ayadoo 2 sifir ah ayuu wuxuu keenay 73 senti. sidoo kale saa ognahay Elon Musk waa nin aad iyo aad saameyn ugu leh, waa ninka hadda Twitter iibsaday. marka waxaa la filayaa waliba Dogecoin in aad u weyn ayay leedahay lacagtan. market capkeeda hadda wuxuu gaarsiisan yahay $10 billion ku jirto. marka inta badan lacagahan waxa kiciyo oo drive gareeyo waxa koow ka ah
community ayaa kuuka marka community aad iyo aad u fara badan ayay leedahay lacagtan Dogecoin marka waxyaabaha laga tawaqquci kara sanadkan 2023 waxa kuuka ah in ay $1 tagi doonto iyo meelo kale oo ka sii sareyso laakiin dadka waxaad moodaa in ay aad u sii concern gareynayaan lacagta kale soo socotoon si fiican uga hadli doono la yiraahdo baby doge la yiraahdo maadaama hadda ayada ay 8 sifir tahay lana filayo 99% in lacagtaasi ay sifiraad fara badan iska soo jarto oo waxa suuragal ah $1 oo aad gashato baby doge in ay millionaire ka dhigto okay lacagta labaad hadii aan ka hadalno Shiba Inu lacagta la leeyahay saan ognahay 2020kii bishii August ayay soo baxday lacagtan waxay sameysay historical ayay sameysay lacagtan ayadana dad badan ayay millionaire ka dhigtay lacagtan ta arkaysan lacagtan bishii September 2deedii 2020kii lacagtan waxay joogtay 10.08 ayay joogtay kadibna sanad gudaheeda isla Septemberkii October teedi kale sanad iyo dabcan waxa u dhaxaysay sanad iyo bil ama 2 bilood aan filaya u dhaxaysay kadibna waxay tagtay 4.08 ayay tagtay macnaheedu waxay ka dhigan tahay 6 sifir ayay jartay halkii dollar oo Shiba Inu ku maalgashato 2020kii waxay ahaanaysay $1 milyan imagine okay lacagtan ayada hadda xogaa inkastoo ay popular ay noqotay haddana lacagtani wali still waxa la filayaa inay 40 sifir iska jari karto oo ay $1 ay tagi karto okay kaalin saddexaad waxa noo ah oo aad lacagta inoogu muhiimsan aan isdhihi karo waa lacagtan la yiraahdo baby doge lacagtan baby doge waxaan ka hadlay 3 isbuuc ka hor qiimaha ay joogtay 3 isbuuc ka hor waxay ahayd lacagtan waxay ahayd 8 sifir hal ay ahayd 8 sifir hal eber ayay joogtay macnaheedu waxay ka dhigan tahay lacagtani in ay sameysay 3x inay sameysay 3 jibaar in ay sameysatay macnaha $10 hadaa gashan lahayd lacagtan 3 isbuuc ka hor marka muuqaalka sameynayay maanta waxay ahaan lahayd $35 haddii aad $100 gashan lahaydna $350 ayay waqti xadirkan aan kula hadlay ahaan lahayd runtii waxaan jeclahay mar walba muuqaalo aad u fara badan inaan ka sameeyo baby doge because lacagtani waa lacagta ugu badan ee trending hadda ah suuqa cryptocurrency markii laga hadlayo lacagaha meme coinska markii laga hadlayo marka sanadkan potential aad u fiican ayay leedahay lacagtan maalgasho wixii aad awoodo aad ku maalgashan karto adiga oo mas'uuliyadeedana qaadayo riskiga uu leeyahay suuqa cryptocurrency marka aniga laakiin tala ahaan waxaan ku siinayaa lacagtan in aad maalgashato maxaa yeelay waxay leedahay fursado aad iyo aad u muhiim ah in ay lacagtani sida Shiba Inu iyo kale ay isjarto ilaa iyo 4 sifir ilaa 5 sifir ay isjarto fursadaas ayay haysataa lacagta kale afraad waxa la yiraahdaa Bitgerti waxa loo soo gaabiyaa eriga bariisa ayaa loo soo gaabiyaa lacagtan ayadana mashruuc aad u weyn ayay ku fadhisaa waxay sameysay blockchain la yiraahdo BRC20 la yiraahdo sidoo kale exchange ayay sameysay lacagtan airdropyo badan oo ay soo bandhigeenna waxa idin kula wadaagay qaybta video hore ayaan ka sameeyay waxaan filayaa hadda channelkeena ku xiran tahay ina hore u aragtay soo marka lacagtani ayadana waxay ku dhawaaqeen ayaan dhaweeto total supply-geeda maadaama uu aad u fara badan yahay oo uu yahay qiyaastii total supply-geeda waa 1/4 trillion ayuu ahaa hadda laakiin qiimaha yaalo oo haray inta kale waa la gubay waa 395 trillion waaye marka waxay ku dhawaaqeen inay 99% ay gubeen marka lacagtan all time high-geeda waxay tagtay 5 sifir 4 eber ayay tagtay lacagtan ayadana waxaa laga tawaqquci karaa in ay tagi doonto 2 sifir in ay tagi doonto ilaa 3 sifir ilaa 2 sifir ugu yaraan in ay tagi doonto marka 3 sifir ilaa 4 sifir ayay lacagtan isjari kartaa ayadana waa fursad kale aad iyo aad u qaali ah gashigeeda marka lacagta shanaad waxa waaye Rich Quick ayaa la yiraahdaa ayadana Rich Quick ayaa la yiraahdaa lacagtan ayadana hadda waxay joogtaa 8 sifir hal 4 ayay joogtaa total supply-geedana wuxuu ahaa 1/4 trillion ayuu ahaa lacagtan ayadana waa lacag waxay kamid tahay lacagaha meme coinska oo aadka mar walba trending u ah haddii aad taqaano manasadan aan hadda aan baaritaan ka sameynay leeyahay coin market cap
waxay ka mid tahay lacagaha loogu baariska badan yahay sanadkii lasoo dhaafay 2022 iyo sanadkan hadda lagu jiro. marka waxay ka mid tahay lacagaha aad iyo aadka fursadda u haysto in ay insha allahu isjaraan 3 sifir ilaa 4 sifir in ay isjaraan iyo ka badanba insha allah aan ka rajeynayno. marka suuqa hadda sanadii lasoo dhaafayo dhan bitcoin-ka saa ogtihiin wuxuu galay hoos u dhac ayuu aaday markuu 2021 uu tagay qiimaha ugu sareeyo, kadib wuxuu bilaabay in uu haddana hoos u dhac weyn uu sameeyo, mustawooyinka ugu hooseeya uu tago. marka waxaa la filan karaa in sanadkan 2023 in uu bitcoin-ka iyo lacagaha cryptoga ay u bilaabaan inay dib kor u kac ay u sameeyaan oo ay ka tagaan mustawayaashii ay tageen 2021 markii ay gaareen $68,000 uu gaaray bitcoin-ka. marka haddii ay dhacdo inuu insha allah bitcoin-ka uu gaaro 100,000 iyo meelo kasii sareyso, rage quick iyo lacagaha kale aan soo sheegay shanta lacagood soo sheegay meme coins-ka waxay inoo tahay fursad qaali ah oo maalgashi ah oo aan ku sameyn karno lacag aad u fara badan aan uga sameyn karno suuqan cryptocurrency-ga. muuqaalkeena insha allah intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. waxaan filayaa inaa wax fara badan aad ka faa'iiday, baaritaan badanna aad sameyn doontid insha allah. mowqican iyo dhammaan janaalada waxay leeyihiin sidoo kale janaalo Twitter ayay leeyihiin. Twitterkooda waxay kusoo bandhigaan waxyaabo fara badan informationkooda. marka waxaan filayaa in aad haddaa u baahan tahay inaad information badan aad ka hesho mar walba cryptocurrency-ga, waa inaad familiar la noqoto Twitterka oo account ka samaysata haddaadan lahayn. marka insha allah accountadooda Twitterka iyo waxoo dhan Telegramka iyo qaybta description-ka muuqaalkan ay idinkula wadaagi doonaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.